Soomaaliyeed oo tiro badanna waa ay dhaliileen waxay yiraahdeen ninkan meeshaan kuma habboon CBB-da ma badnaadaan raggii CBB-di ha u badnaadaane ninkan kuma habboona meeshaan maanta dadka Soomaaliyeed iyaga ay qiimeyn u tahay iyaga laga rabaa qiimeyn anigu kolley isqiimeyn maayo isaan hadlina maayo haddaan hadlayo buug markaan xoogaa weynaado aan soo saari doono wax waa ku soo qori doono laakiin qiimeynta dadka Soomaaliyeed oo tahay runtii waxay ahayd waxaa ku soo aaday meel oo la isisiinayo ubax la isku soo dhaweynayo ma ahayn waxaan ku soo aaday iyadoo khilaafkii Ethiopia cusub yahay MOU-gii arrintiisii ay cusub tahay wada hadal kooban oo hal mar oo wareega uu Djibouti uu ka dhacay Nairobi arrintu cirkaas ku sii shareerayso Soomaaliyana ay ku sii socotay progress ah xagga amniga iyo xagga siyaasadda oo xooggan ay socoto sanadkaas runtii wuxuu noo ahaa anigana indhafur buu yahay adduunkana Soomaaliya magaceedii meel aan la gaarsiin ma jiro maxfal iyo madal intaan ku gaari weyno intaan ku arki karno waa ku arkaynay intaan ku gaari weynana qoraalkeenaan ku gaarsiin jirno waxay ahayd waqti aad khatar u ah dowladnimadeena khatar ku ah dalka wada jirkiisa iyo midnimadiisana khatar ku ah waxay ilaahay fadligiisa in sanadkii hore akhirkiisii 11 December wax la isjiidaba wada hadal 7 bilood socday in markii dambe laga gaaray arrintii la isku hayay xal maanta Ethiopia aan isku fiicanahay oo aan sidii hore isku ahay oo laba dal oo is ixtiraamaya aan nahay Soomaaliya seeraheedana iyo xuduudeeduna in maanta adduunkiina mar labaad aan u cusboonaysin maanta inoo yaqaan mashruuca oo maaragtay halkaan ku furan oo aniga dadka waqooyiga Soomaaliya ma dhahayo inay wada aaminsan yihiin laakiin dad siyaasiyiin ay wateen mashruuc halis u ahaa oo u dambeysay tii haddeertaan Taiwan wasiirkooda arrimaha dibadda uu rabay inuu ku soo booqdo meeshaas oo boostin siiyo barnaamijka gooni-goosadka dowladda Soomaaliya kuma aysan shaqaynayn siyaasad dalkale annaga war-aan siyaasaddeena aan leenahay annagoo ka ambaqaadayna iyo waajibka naga saaran ayaan baan garaynay ayaan xayirnay baasaboorkaas guud ahaanba totally in dalka Soomaaliya in cirif ilaa cirif lagu soo galo waayo xafiis sharci darrada meesha uga furay xafiis safaarada ay u sheegeen ayaa meesha ka furan waxay tababareen ciidamo qayb ka ahaa dagaalada ka socda deegaamadaas oo saraakiishooda la yaqaan oo magacyadooda la hayo khatar bay ahaayeen arrintaas marka waxaan uga hortagnay annaga kuwa waxay yiraahdeen dowladda China gadaal ka waday markaan Ethiopia ka celinayna ma dowladda China gadaal laga waday sidii mabda'i laftiisii ayaan arrintaasi ku joojinay ayna ku istaagtay marka guud ahaan runtii wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkana waan soo aragnay faylashiina uu soo intuu si boobsiisa waa ku soo arkay wasaaraddu ah difaac iyo indho hore balaayo oo dhan in la arkaa rabaa Twitterka ninka diblomaasiga meel gelinaya in la fiiriyo dhaqdhaqaaqa iyo gasharka uu sameeyo rabaa in la iska fiiriyo waa wasaarad ku dhisan ama daaqilkeedu oo dhamay ku dhisan yihiin inay noqdaan indhaha Soomaaliya indhaha ka ilaalinaya faragelinta indhaha ka ilaalinaya xaqiraada indhaha ka ilaalinaya kala goynta indhaha ka ilaalinaya kala sooca dadka Soomaaliya wasaarad noocaas ah oo sidaas u weyn u dadka hadda jooga na waxay u tababarteen runtii inay halkaas hawshaasi ka wadaan waxaan runtii muddadii aan joognay waxyaalo badan dhacdooyin waxaa soo ku biirnay Security Council oo mas'uuliyad adag oo la rabo dowladaha is haysta inaan miisaano inaan dheelitirno
la macaamilkooda oo aanan dhinac bias u noqon dhinacaanan isku riixin berito security councilka waa ka baxaynaa 2 sano kadib waa noo dhammaanayaa annagoona eedaysnayn oo dowladdu colaad noo hayn baa la rabaa inaan tartiib uga baxno weliba saaxiibtinimo iska daaya saaxiibtinimo inaan ku kasbanno inaan dalkeena marka isdiidooyin tiro badan ayaa ku soo mari doona wasiir yaalana hadda xafiis isdiidooyinkaas si dheeli tiran in loola macaamilay u baahan yahay dowladda Soomaaliyana waxa weeye waa tii siyaasad tasfiir al-mashaakil la yiri annagoo maadaama aan qaadanay zero conflict haddaan qaadanay dowlado kale oo isaystara waxooda inaan dhex muquuranno ma aha waxaan arrintaasina waa arrinta aan rabo waxaan sameynay runtii reform xooggan wiilal dhalinyaro iyo gabdho ayaa wasaaradda hogaamiya qofka u yar uu master degree haysto awal waxay ahayd dadka quality-ga oo dhan safaaradaha dibadda ay aadi jireen laakiin waxaan iri wasaaradda base-ka u ah safaaradahaas inay waxooda oo dhan isku dubarido oo ay maamusho waa inay joogaan dad quality leh waa inay joogaan dad ka jawaabi kara challenge-gaas dad ka jawaabi kara qoraalada dad ka jawaabi kara issues-ka yaallo dhan akhrina kara runtii maantay ra'iisul wasaaraha waa kulay halkaan bay soo istaagi doonaan photo group-ka soo istaagi doonaan agaasimayaal wada aqoonyahana ayaa hogaaminaya waxaan rabnaa iyagana oo Soomaali oo dhan wasiirada qaar baa waxa laga yaabaa in lagu xanto inay reerahooda kaliya u shaqo dalooliyaan horta hal nin oo reerkayga sacal la yiraahdo agaasima ma jiro waa Soomaali weey waad arki doontaa reformka waxa ku jira structure-ka agaasimayaasha waxaan baasaboorada service-ka waxyaalaha eeda ugu badan aan ku kasbaday inaan joojinay in wasaaradda magaceeda lagu xoqdo qof maaragta raba inuu si u tahriibo ama baasaboor uusan xaq u lahayn iska qaato arrintaas runtii si wada jira ayaan ugu wada shaqaynay kaliya baa ka shaqeeyay maayo taasi eed bay ugu keentay in mooshin la yeegayo baarlamaanka eedaasna markii inaan u ritana diyaar baan u ahaa laakiin markii dambana de waa isgarowsanay waana fadhisan arrintaas marka waxay u baahan tahay baasaboorka diblomaasiga waxaa xaq u leh sharci 2023 soo baxay dad uu siinayo bas rag la tixgeliyo xafiisyada waaweyn ka yimaadana way jiraan oo siyaasiyiin hore ahaa ama ra'iisul wasaarayaal hore ahaa ama sharci uu ka tagay oo hadda aan meel cilaa lagu day karin laakiin xakameyn weyn ilaa iyo 3800 oo baasaboor diblomaasiyan hawada ka saarnay oo dhacay oo aan la cusboonaysin oo dad aan sharci u lahayn ay wateen waxaan runtii ra'iisul wasaare muddadii aan joognay aan u aragnay in cilmiga iyo aqoontu ay yihiin waxa hogaamin kara siyaasaddeena arrimaha dibadda sidaas awgeed waxaan xoojinay macadka daraasaadka diblomaasiyadda oo aan tayayn oo maanta ay ku jiraan wuxuu bixin jiray macadkaas kaliya tababaro yar oo kooban ka sokow hal bil oo protocol ayaa lagu soo waday maanta waxaa jooga diplom caali ah diplom sare oo shahaado ka sarreysa muxuu ahaa jaamacadda ayaa socda waxaana mar dhow la daafuri doonaa ra'iisul wasaaraha rajaynayna insha Allah inuu daafuro bisha 6 soo socota barnaamij master degree oo diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dawliga oo ay dhigayaan professoro dibad iyo dalba jooga oo waaweyn oo annaga oo dhan arrin inaan dhigano arday ka noqono haddaan xitaa baxo wasiirka dabcan lacag baa lagu dhiganayaa scholarship baan ka codsanayaa inuu ii ogaado macadka waan ka dardaarmaynaa shaqo fiican baa ka dhex socota wuxuu soo aruuriyay kitaabley dadku wax qori jiray wuxuu soo aruuriyay aqoonyahankii Soomaaliyeed waxaa dhex jooga maalinkaas aad ku arkaysaa 10 aqoonyahan markay u yaraato waxaanan la bilaabayaa bisha soo socota saan ku ballanay hadday ku sii socoto in buug weyn la soo saaro oo 6 iyo 15 researcher ayaan u xil saarnay inay
mid walbaaba field iyo canaawiin la kala qaatay oo macadku buuggii koowaad oo uu soo saaro buug weyn oo Soomaali iyo ajnabiga ay akhrisan karaan ka dheehan karaan siyaasadkeena iyo dalkeena halka uu socdo buuggaasna waxaan rajaynaynaa daahfurkiisa inaan qayb ka ahaado ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkuna ay daahfuri doonaan waa runtii wuxuu noqon doonaa mid 6 biloodba hawl sii socoto waxbaana la ka qoraa maalin kasta waa la rumaystaa وأننا مركان أبدنا أنت مكروه كانوا كلا قادتان شرجنا كقونا وحسن كبينين قرآن بالو بينيا ذلك هذا عد كفي عن دولة ديس إنه وحكي قرط مجر توايا ذاتك مسؤولية دوايا ما عد كنا وحنا إن قعنت الوهاي وحان سمينا يبددي إن أنا أكتف كان هاي والرضا كتر سن هاي إيو ururgoboleedaha ahaado ama kuwa ka waaweyn gobolka ahaado xiriirkeena waxaan xoojinay laba geesoodka dawladaha la leenahay iyo kuwa dhinacyada badan multilateralka dhammaan ururada aan ku jirno Soomaaliya active ka tahay ama shir laga qayb galay ha noqoto ama ha noqoto maaragtay participation kale oo wax la isku daray gudiyadooda waxaa jira shir noo madlan oo ay si oo 16 dal contact group ay si u samaysay Soomaaliya oo Doha ka dhici doona sida la qorsheynayo bisha soo socota ama bisha ku xigta laakiin hadda wuxuu nagu astaysan yahay wax yar dib u dhac laga yaabaa inuu ku yimaado 12 bisha soo socota 16 dal wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa